Biz de Türkiye olarak her zaman olduğu gibi Somalili kardeşlerimizin bütün çabalarında, bütün sorunlarla karşılaştıkları zaman yanlarında durmaya çalışıyoruz. annagana ka dowlad Turkiga ahaan sidii horeyba ay u ahaan jirtay in walaalaheenna Soomaaliyeed aan isbarbar taagno mar walba way caqabad la kulmaan dhibaato la kulmaan inaan garabkooda istaagno. Bu Covid'le Somalili kardeşlerimizin Covid'le mücadelesinde de yanında durmak istiyoruz. Dadaalkan ay kula jiraan cudurka COVID-19na waxaan jecelnahay inaan garab ku siino aan garabkooda istaagno. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söz konusu olduğu zaman Somali çok özel bir yere sahip onun dünyasında. Marka loo eego madaxweynaheena Recep Tayyip Erdoğan Soomaaliya meel gaar ay kaga taalo. Hemen talimat verdi Somali'ye en güzel bir şekilde yardım yapılmasıyla ilgili olarak. Markii la gaarsiiyey in baahi ay jirto isla markiiba wuxuu amar ku bixiyey in si degdega gargaar loo gaarsiiyo Soomaaliya. Geçen hafta yine bir uçağımızla bir yardım malzemesi getirdik. Sidoo kale isbuucii la soo dhaafayay waxaa timi diyaarad sido qalab caafimaad. Ama esas olarak tabii Somali'nin ihtiyacı olduğu şeyler ventilatörlerdi. İşte özellikle bu ağır yoğun bakımda kullanılan tıbbi araç ve gereçlerdi. Laakiin Soomaaliya shayga ay ugu baahida badneed wuxuu ahaa ventilator ama qalabka qofka ku caawiya oksijiinka ama neefta siiya. En kısa zamanda onlar da temin edilip bu uçakla getirdik şu anda. Sidaas darteeda yaa waxaa la keenay qalabkaas ventilatorska ama qalabka oksijiinka. Ventilatörlerin dışında yine koruyucu malzemeler hem halka yönelik hem sağlık çalışanlarına yönelik malzemeler var. Sidoo kale waxaa la socdo qalabka kahortaga oo loogu talagalay guud ahaan dadweynaha iyo gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka. Test kitleri var çok sayıda. Waxaa kaloo la socdo qalabka baaritaanka lagu baaro cudurka. Yine her türlü maskeler var. Waxaa kaloo la socdo maaskooyin kala duwan. İnşallah. Önümüzdeki günlerde 2 uçak daha gelecek. Onlarla da yataklarımız geliyor. Diğer geride bütün malzemeleri bu uçakla getiremedik. Onlara da 4 veya 5'inde 2 uçak daha gelecek. Onlarla getireceğiz inşallah. Maalmaha soo socdana waxaa imaan doona diyaarado kale oo sida qalab kaloo caafimaad oo baahi loo qabo ay ka mid yihiin sariiraha. Waxaa waye diyaaradan way soo qaadi weysay. Taas darteed maalmaha soo socda waxaa imaan doona diyaarado kaloo ayagana sida qalabkaas. Ayrıca bu uçakla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali halkına, Türk halkının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Somali'nin yanında durduğunu ve Covid'le mücadelesini desteklediğini bizim dayanışma mesajımız içeren mektupta getirdi. Diyaaradan maanta timid oo keentay qalabka caafimaad sidoo kale waxay keentay warqad ka socota madaxweynaha Turkiga iyo shacabka Turkigaba oo ku socota madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed. İnşallah bugün o mektubu Sayın Cumhurbaşkanı Farmacı'ya, ekselanslarına takdim edeceğim bugün. Warqadaas ka timid madaxweynaheena iyo shacabka Turkiga isla maanta yaa waxaan u gudbin doonaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Biz Somali'nin her zaman zor durumlarda yanlarında durmaya çalışıyoruz. Bu da bunun bir başka göstergesi. Mar walba waxaan ku dadaalnaa inaan garab istaagno walaalaheenna Soomaaliyeed. Tanna waa qayb ka mid ah isgarab istaagaas. Umarım önemli katkı yapmış oluruz. Waxaan rajaynayaa in dadaalkan ama gargaarkan aan keennay uu noqdo mid waxtar leh.